idiin galay oo idinka mudmeersaday oo aabihiin yani waxa way u khalday cadowgii isaga ahaabaana adduunka idinla joogay isjira ina shaytaana lakum caduwan faattakhiduuhu caduwan. halkan marka waxaa laga guladalayaa qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacala nabiyina asalaatu wassalaam iyo ibliis. waana ujeeddo muhima laga leeyahay oo ay ugu weyn tahay in layna dareensiiyo cadaawadda inaga dhaxaysa innaga iyo ibliis. wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacala marka wadkur waxaad xustaa id waktiga qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markuu ku yidhi innii anigu jaacilun mid yeelayaan ahay fil ardi dhulka dhexdiisa khaliifatan ku isaga dambeeya maamulkeeda iyo camirideeda isaga dambeeya ayaan yeelaya. qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii atajcalu miyaad yeeli allow fiihaa dhulka dhexdiisa miyaad yeeli man cid yufsidu fasaadinaya fiihaa dhexdeeda ma kuwa fasaadinayaa dhexdeeda yeeli oo wayasfiku daadinaya addimaaa dhiigaga daadinaya wanaxnu anaguna walxaal naxnu anagu nusabbixu aanu ku nasahayno ceeboo dhan aan kaa fogeynayno bixamdika annagoo mahadintaada ku dheehan mahadintaada lala qabo wanuqadisu annaga oo ku dahirayno ku weynaynayna laka adiga. qaala wuxuuhi rabbi subxaana wa tacala isagoo malaa'igta u jawaabaya innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn. aadam markuu damcay rabbi subxaana wa tacaala inuu abuuro yuu malaa'igtiisa la socodsiiyey wuu wargeliyey. ma aha inuu la tashanayo maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacaala cidna lama tashado, laakiin waa wargelin la socodsiin wuu wargelinaya. dhulka waxaa yeeli buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala oo dhulka ku abuuri cid mas-uuliyaddeediiyo xilka dhulka iyo maamulkiisa u kala dambeeya. khaliifada saasaa laga wada huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi way macnaha waa kuwa dhulka u kala dambeeyo markuu jiil tagaba jiil kalaa ka dambaynaya, markuu umari ay tagtaba tu kalaa uga dambaynaysa. kuwaa ka dambeeyey baa dhulka camiridiisii iyo maamulkiisii iyo welidiisii kuwaa dambaa qabanaya. marka khaliifada saasaa la yidhaahdaayo isaga dambaynta way macnaha. yaa lagu wadaa marka waa aadam calayhi salaam iyo caruurtiisa ka farcami doonta wey, aadam iyo ubadkiisa wey. markaasaa waxay yidhahdeen malaa'igtii allow ma waxaad yeeli dhulka dhexdiisa cid fasaadisa oo dhiigaga daadisoo islaysa oo maxay ku ogaadeen inuu dhiigga u daadin doono caruurta aadam dhali doono wey. ma aha aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaam inuu dhiig daadin doonee laakiin ubadkiisa ka farcami doono wey. haddii la isweydiiyo malaa'igtu say ku ogaatay waxaa suurtagala cilmi khaasa oy horay u sii hayeen inay ku ogaadeen. waxaa kaloo suurtagal ah inay dabeecadda bini aadamka markuu ilaahay ku yidhi dhoobaan ka abuurhaya dabeecaddeeda inay ka fahmeen inuu dhulka fasaadin doono. inta waa suurtagal. qowlo kalena waa la yidhahdaa iyagan marka dhiiggay daadinayana way fasaadinaya dhulkuu fasaadinaya waxa weeye dunuub iyo khaladaad iyo gaf badan buu dhulka ku samaynaya. ila insaan horeyba usoo marnay dhulka waxaa fasaadiyey waa dunuubta ilahi uusan raalli ka ahayn subxana wa tacala. ayib isla markaa waxay daba dhigeen anagu ku nasahayna nusabbixu annagoo ku nasahayno ceeb oo dhan kaa fogeynayna oo macnaha kuu tasbiixsanayna haddana ku mahadinayno oo ku mahad celinayno ku ammaanayna ku dahirayna oo ku weynaynayna annagoo intaas samaynayna kuwo kaleeta oo dhulka fasaadinaya miyaad ku abuuri bale miyaad ku abuuri. su-aashaas malaa'igtu ay jeedinayso ma aha iyagana inay ilaahay subxaana wa tacaala ay mucaaradsan yihiin arrinka uu u sheegay laakiin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa su-aalu isticlaamin waistikshaafin can ilxikma wey. waxay doonayaan inay ogaadaan
xikmadda ku jirta يعني مخلوق نوعا صنولك سايري دونا أبورست أديره كو أبورست بل حكمته كشرت النوع ده نوشك مركوا علمي دون هي عبدين دون حكمته دون يعني إنه فهمان مويه إله من معارضين كرم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما أمرك إله سبحانه وتعالى معارضين معه ساسويا ربي مركوا وقت سوابي ويحكوني إني أعلم ما لا تعلمون hal dhinac baad idinku ka aragteen fasaad uu dhulka ku samayn doone laakiin anigu waxaan ogahay waxay darweyn oo muxuu yahay fasaadka aad ku sheegteen inuu ku kici doono masaalixda uu qaban doono iyo wanaag uu dhulka ku samayn doonaa ka badan oo muxuu ku samayn doonaa nebiyaa ka mid noqon doona oo sidiiqiin baa ka mid noqon doona oo shuhadaa ka mid noqon doonta oo culimo caamiliina baa ka mid noqon doona oo dad ilaahay jannadiisa u diyaariyo akhyaara ka mid noqon doona oo cubaad baa ka mid noqon doona marka dhankaa umaad ka fiiriseen laakiin masaalix kaloo fara badan oo idinka qarsoontay baan ugu ogahay oo abuuristooda dhulka lagu abuurayo yani maslaxada ku jirta ka weyn mafsadada iyo dhibka idinku aad tilmaanteena ku jirta macnaha saasaa ilaahi subxaana watacaala uu ku leeyay malaa'igta wadkur waxaad xustaanayo id taasaa waxaa loo soo qadaraa wadkur baa layska soo qadaraa xus oo dadka u sheeg id waqtiga qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta markuu ku yidhi innii anigu jaacilun baan ahay midkii yeelaya fi lardi dhulka dhexdiisa ayaan yeelayaa khaliifatan mid isaga dambeeya khaliifatan yani mid ilaahay wakiil uga amaah walaadada qaarna waxay yidhahdaan mid ilaahay wakiil uga oo dhulka khaliif uga sax maaha خليفة بمعنى وحوي إساقا أكلا تنبينيو يدي مركو كتاقو كدن تبا ميتكلا أكلا تنبينيو سوسي معنا سيدا عيرك لتو ليو فاليسري قالوا وحي لنا مك أتجعل من يلي الله فيها بلك تحديث منعد يسد فسادنيا فيها بلك تحديث وهو يسفك دادنيا الدماء بيقاق دادنيا إساقو إسلين أوليك دادن وحاد قرن كتا فساد كبلك الغسة ما يكون أبوه وحاكمدا إن إيك حق درن لغو داريو وضدك يسكتلو والحال ميات ساتيين الله نحن أنه حدار ملائكتنا نسبح آن النزهين هذا كنا يعني التصبيح لوحل الأداء التنزيه عيب هي الدمنان هي النقص أو نمو إله لقفه سبحانه وتعالى لأن إله هو عيب كصين ما لا عيبك كان ملك دمنان ملك إله سبحانه وتعالى أنه كنا الزهين سبحانك كله بحمدك ولما كلها متلبسين حالها كلها معي بحمدك مهدين تاولا كلها معي وعنه سبحانك اللهم وبحمدك كلنا هو الله ولا صلى إسرائيل ونقدس عن الظهيرين وكونين ولك عليك عن كونين وكظهيرين قال رب سبحانه وتعالى إني أروه أعلم وحلوه ما لا تعلمون حدا نبي هذا كواح لغيه وإن يفهموا إني دونيان بدلك آدم يأخذ كيسة إني يوم كلام ساسي صحبه فهم كما فهم بعيدو معها أنك نقول بدلو ميش النقي سماه إله الضمور ورسنه أنه كرابة شريه حديات كل يكون ميش قينيسو يعني كواء فساد لك كسا من المدقيس لو كريم معنا يعني بالحكمة كوشي سأيوه وحاقوك عيهنا دقيسة محاكو جرا ساسو يعني هذه أرنكاس مركة ملائكتي كتبت ربنا سبحانه وتعالى وقرشيه إنه يعني آدم أبوره سو ملائكة إلا قنعيمة إله سبحانه وتعالى إسلام قنعيم بوليه كرا أمر وياني قاطع لكن إله سبحانه وتعالى يجعله الدولة دي سئلوا قنعيم مروربا ويحجده عديه إيهو كان عسل مركة إلي قاتان وإيه رب الله سبحانه وتعالى طيب وحالله مجرد مركة فضلك إيا الديرات كآدم أوليه وعلم الله وبري آدم وبري الأسماء مقعيدي ببري كل هذا مانت واحد شروع وقال مقعيدي سالبري ثم كدبنا عرضهم وبلغي الله سبحانه وتعالى عرضهم مقعيدي ببلغي على الملائكة عرضهم مقعيدي هو العلم عرضهم وحياله مقعيد لها أيه بلغي على الملائكة ملائكته بلغي فقال مركزوه رب سبحانه وتعالى أنبئوني إيوهما بأسماء هؤلاء كون مقعيدو ذا إيوهما إشياء
waxyaabahan agtiina tuban makhluuqaadkan allala ka batay ee meesha lasoo tubay bal magacyadooda ii sheega buu ku yidhi in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bini aadamku dhulkay fasaadinayaan hadday runtiin tahay inaad abuurtana ama macnaha waxa weeyaan kuwo ka fiican ama abuuri lahay bal hadday taasi run tahay waxyaabahan magacyadooda sheega marka carabda runta asmaada sideedaba magacuna waa magacana shay buu magac u yahay dameer oo kale matalan waa magac shay dameer la yidhahdo magac u yahay marka waxaa loo bandhigay waxaa rabbi subxaana wa tacaala aadam uu baray magacyadii oo dhan iyagana waxaa loo bandhigay waxyaabihii magacyadaa lahaa geedkii yani waxa bini aadamkii xoolihii yani waxa weye dameerihii daayeeradii wixii magacyada lahaabaa loo bandhigoo lasoo hortubay markaasaa la yidhi waa kuwane bal magacyadooda sheegsheega mid walba magaciisa sheega la yidhi saasuu macna ayib haddaad run sheegaysaan wacallama alla wuu baray aadam wuxuu baray al asmaa'a magacyadii kullahaa dhammaanta kullahaadu waxay faa'iideynaysaa yani in makhluuqaadka oo dhan magacyadooda nebi aadam la baray calayhi salaam waxayna yani ay meesha ka saaraysaa ra'yi culimada qaar ka mida ay ku tageen oo yidhaahdeen malaa'igta iyo bini aadamka magacyadoodaa la baray aadam oo khaas ka dhigay saa waa laga fiicanyay makhluuqaadkao dhan magacyadoodaa la baray idan waxba laga soo reebin kullahaa dhammaanteed uma kadibna carabda alla wuu bandhigay hum waxyaabihii magacyadaa lahaa makhluuqaadkii magacyadaa lahaa buu ilaahay bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta dusheeda u bandhigay faqaala wuu bandhigay macnaa wuu muujiyey waa loo soo muujiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi ambi'uunii ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda iiga warramo ii sheega in kuntum haddaad tihiin malaa'igtayda saadiqiina kuwa run sheegay warkiinii hore hadduu run aha bal waa kale oo aadam iyo carruurtiisa waxooga aad dhaliisheen taasi hadday runtahay bal magacyadan waxyaabaha meesha yaalla magacyadooda sheegalay qaaluu waxay yidhahdeen subxaanak nasahnaantaada hufnaantaada aad ceeb oo dhan ka hufanta laa cilma wax aqoon ah iyo yani cilmi ah lanaa annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka adigu allow anta adiga ayaa alcaliimu midka cilmiga badan ah alxakiimu ee xikmadda badan malaa'igtii way ka cudur daartay waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda inay sheegaan imtixaan baa la geliyey maxaa yeelay haddaadan shayga garanaynin inaad iska qasbato ma aha inaad iska qardo jeexdana ma aha inaad iska mala awaashana ma aha waa inaad tidhaahdo allahu aclam cilmigay ka mid tahay waxaadan garanaynin jawaabtiisu waa allahu aclam laakiin inaad iska jiidha ma aha malaa'igtu marka way edebsatay inti tabarteediina way ku gaabsatay waxayna garanaynina iskumayna kallifine waxay yidhaahdeen allow yani waanu ku nasahaynaa horta ceeb oo dhan baanu kaa hufaynaa marka labaadna waxa weeyaan waxaadna bartay mooye wax kaloo naqaano maba jiraba kuwanna horay maadan noo barin xaggeen kaloon cilmi ka keenayna marka saas daraaddeed ma naqaano wey ma naqaano oo ka qurux badan wey ma naqaano oo ka qurux badanoo ilaahay aad cilmigeedii u daysay wey allow intaadii bartay un baan garan intana inaadan barin saas wey macana cilmi oo dhanna adiga ayaa leh saas wey macana adiga ayaa waxaa tahay midka cilmiga yani shay walba cilmigiisa leh oo cilmiga dhammaystiran xakiim ahoo shay walba meeshuu lahaa dhiga xakiimka waxaa la yidhahdaa ruuxa yani aan la gafin xakiimka meeshuu rabay shayga inuu dhigo lama gafo ansar maseegtaynimu dhihi jira wadadadu yani meeshaad rabto inaad shayga dhigto lama gaftid shay walba iyo meeshuu ku habboonaa baad isla heshaa xakiim baa la yidhahda ayib allah subxaana wa tacaala midka akhbaartiisa iyo hadalkiisa iyo axkaamtiisa iyo afcaashiisa mid walba meeshuu ku habboonaa buu alla dhigay subxana wa tacala xakiim wey qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii subxaanaka nasahnaanteeda alla waad hufan tahay laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin waxyaabahaas aadna tustay magacyadooda cilmi uma lihin iyo aqoon laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka anta adigu alcaliimu baa tahay midka cilmiga badan alxakiimu oo haddana xikmadda badan baa tahay
qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtii marka waa muuqataa inay ka caajiseen inay sheegaan waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda. qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa aadamu aadamow anbi'hum malaa'igta u waran biasmaa'ihim waxyaabahan magacyadoodii mar baa layidhi malaa'igta. falamaa goortii anba'ahum uu u warramay anba'a aadam uu warramay hum malaa'igtii markuu u warramay biasmaa'ihim waxyaabahan magacyahoodii markuu u sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkasoo idinkuma odhanin malaa'igay innii anugu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka waxa ku maqan waalardi iyo dhulka wixii ku maqan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinay. aadam oo horay loo baray magacyaha ayaa waxaa la yidhi malaa'igtii hadday garan weyday aadam ugu sheeg mar baa la yidhi. aadam wuu baray wuxuu ku yidhi kan dameer baa la dhahaa, kan waxaa la bini aadam baa la dhahaa, kan geed baa la dhahaa, kan bad baa la dhahaa. yani waxa waxyaabihii meesha la soo turay wuu mid malaa'igta ugu sheegay. soo macallinkoodii ma noqoni marka hadda miyay odhani marka waxa weeyaan miyay odhanayaan atajcalu fiiha wayasfiku dimaa? soo warkaasi lagama daymaanin. fadligii nebi aadam calayhi salaam baa marka bannaanka u soo baxay. maxaa yeelay nin ka cilmi badan oo wax baray oo iyagiiba macallin u noqday yaa meeshii ka soo baxay. ayaguna waxay filanayeen oo nin uu wax fasaadiya oo wax dila oo wax kharbura oo wax dhaca oo wax dilo oo wax ribo unbay macnaha sawiranayeen. saasaa marka rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtii ku qanciyey inuu macnaha waxa weeyaan maaragtay bini aadamka khalqigan uu abuurayo masaaliix fara badan inay ku jirto, dad badan oo akhyaara inay ku jiraan, culima inay ku jiraan. dhankaad ka aragteen keliya ma ah. saasuu rabbi subxaana wa tacaala uu macnaha ugu muujiyey. ayib markay garowsadeen aadam iyo cilmigiisa markay garowsadeen ayaa marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi soo idinma odhanin horaan waxaan ogahay dhulka iyo cirka wixii qaybkiisa ahee ku maqan ee idinku aydaan garanaynin baan ogahay. soo idinma odhanin waxyaalo badan baa idinka qarsoonoo xogtooda aydaan haynin. anigasta waxba igama qarsoono soo hore idinma odhanin waxaad muujisanaysaan iyo waxaad qarsanaysaanna labadaba waan ogahay. soo hore idinma odhan waxaydaan ogeyn hadda ka hor soo hadday meesha kama soo bixin oo ah aadamka la abuurayahay isaga iyo carruurtiisu inaysan fasaad ka wada shaqaynaynin ee qayb wanaagsani ay ku jiraan wax ka qarsan bay. laakiin ilaahay baa ogaa waana muujiyey. saas way macnaha. ayib qaala wuxuu yidhi yaa aadamu anbi'hum bar biasmaa'ihim kuwan magacyadooda bar. falamaa goortii anba'ahum uu warramay oo uu baray biasmaa'ihim magacyadooda markuu u warramay oo mid uu ugu sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkasoo idinkuma odhan malaa'igtiye innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati cirarka dhexdooda waxaa qaybkeeda ku maqan ku qarsoon waalardi iyo dhulka qaybkiisa ku qarsoon baan ogahay ku maqan wa aclamu waxaa kaloon ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinay. waxa aan weliba idinka soo bixin oon xubnihiinnu ayna samaynin oon bannaanka imaaninna waan ogahay. waxa aad muujisateen oo bannaanka keensateen oo afka kaga hadasheen ama adimada iyo xubnuhu sameeyeenna waan ogahay. labadaba waan ogahay. soo idima odhanin bu rabbi subxana wa tacala. saas macna ayadda marka waxay tilmaami cilmiga samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoonee haybka ilahi baa og subxana wa tacala. qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah. waxa samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoonee haybka ilahay unbaa og subxana wa tacala. makhluuqaadkiisu waxay ka ogaan karaan in yaroo uuga iftiimiyey. malaa'igta iyo nebiyada iyo sidiiqiinta iyo mu'miniinta iyo awliyada iyo waxoogaa ilaahay uga iftiimiyey oo can dariiqil waxyi looga iftiimiyey unbay ogaan karaan mooye nin kale ka ogaan karaan ma jiro. saas daraaddeed cilmiga qaybka ninkii dalba oo raadiya ama dhulka uu xariiqaha ku raadiyo waan faalinayaa buu leeyahy, ama xidigaha oo fiiriyaha wax ku raadiyo, ama kitaab uu kala furay ha ku raadiyo oo macluumaad ka fiirinaya uu leeyahay.
dariiq uu dooniga ha u isticmaaleen ninkii ama weli baan ahay oo carshigan daalacda ha yidhaahdo iyo yani waxa weeyaan iyo kitaabkan daalacda maxfuudkan daalacda ha yidhahdo ninkii qaybka raadiya oo dariiqa waxyiga jidaan ahayn ku raadiyaayey waa nin nuusan dadkana luminayo magacudooda baa sheegtay markaas wadkur waxaad xustaa bu rabbi subxaana watacaala wadkur waxaa kaloo xustaa nebigu id waqtiga qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliis mooye abaa isagu waa diiday sujuudii wastakbara wuuna iskibriyo waa isla weynaaday wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaaladuna ka mid ah horaanba gaal buu ah horaanba cilmiga ilaahay gaal buu ku ah saas way macna markii malaa'igtii ay garowsatay aadam iyo fadligiisa iyo dheeraadka u leeyahay ayaa markaa kadib ilahi wuxuuna u sujuuda sujuuddaas maxaa laga wadaa culimada qaar ka mida waxay leeyiin foorarsada unbaa laga wadaa qaarna waxoogaa uu isu duleeyay laakiin sida saxda waxa weeye sujuudda sharcigu mar hadduu isticmaalo wejiga dhulka la dhigaa la yidhahda isticmaalka kitaabka iyo sunnada sujuudda ay isticmaalaan wejiga dhulka dhigaa la yidhahda marka u sujuudaa la yidhi macaawidaa laga wadaa maya ee sujuudda ilaahay baa amarkeeda leh aadamna waa lagu ixtiraamayaa ilaahayna waa lagu adeecaya ilaana daacadu waxa weeyaan haddii ilaahay saas samee ku yidhaahdo inaad fuliso siduu samee ku yidhi bay daacadu ku jirtaa sooma marka aadamna ixtiraam bay u ahayd ilaahayna waa lagu adeecaya subxana watacala sujuudda marka mid dhulka la dhiga yahay sidaasaa macnaha waxa weye shareecada isticmaalkeedu u yahayo qur-aankiiyo sunnadu saasay sujuudda u isticmaala malaa'igtii marka way sujuudeen kulligood ibliis mooyaane oo ibliis hadalkii malaa'igta loo jeediyo sujuuda la yidhi buu galay hadalkaa dadka loo jeediyay buu ka mid ah kuwa loo jeediyay buu ka mid ah ayb oo malaa'igtaba ka mid maahayne see buu u galay leanna waxaa sugan in laga abuuray naar baa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray isaga dab baa laga abuuray weliba holac dabka holaciisa iyo ololkiisaa laga abuuray malaa'igtana nuur iyo iftiin baa laga abuuray marka isku mid ma ah seebuu marka u galay malaa'ig buu ilahay hadalka u jeediyey seebuu hadalkaa usoo dhex galay wuxuu usoo galay malaa'igtuu ku tirsanaayo ku dhex jira walow maadada laga abuurayba hagee kaga gadisnaadee laakiin malaa'igtuu macnaha markaas ku dhex jiray markii hadalkii ilaahay amarkii uu jeediyo malaa'igta inteedii kala ay qaadatay isagu markaa waa diiday oo waa isla weynaaday wastakbara waa iskibriyey gaal buuna ahaa markii horeba meesha uu iskaga dhex jiray mooye kaafir buu ku ahaa ilaahay cilmigiisa saabiqa ah gaal buu ahaa kaafir buu ahaa wadkur waxaad xustaa nebigu id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii markaan ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliis mooye abaa waa diiday wastakbara waana iskibriyey istikbaradu waxay tilmaamaysaa sababta ku xambaartay inuu diido sujuudda sababta ku xambaartay waxa weeyaan waa kibir iyo isla weyne oo wuxuu quursanayaa oo liidayaa aadam ma anigoo dad iga abuurtay baad waxaan afoomada ka abuurtay waan u sujuudi waan u tegi doonaa marka yani quurs iyo waxoogaa naftiisu cajab gelisay ayuu macnaha u diiday wastakbara wa kaana wuxuuna ahaa min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid ahaayo markiisii horeba gaal buu ahaa saasuu rabbi ilahi subxana watacala waqulnaa ya aadamu uskun anta wazawjuka aljannata halkaa markii uu sujuuda diiday waxaynu ugu tegi doonaa fi suurati alacraaf iyo suuradaha kaleetee qisada iyaguna keenay lagaga hadlayaynu ugu tegi doonaaye markii sujuudii uu diiday ilaahay waa lacnaday subxana watacala naxariistiisuu ka fogeeyey markii la nacnaday kadibna cadaawad buu qaaday oo u qaaday aadam iyo intuu dhalay ayb cadaawaddaa markuu qaadaybaa markaa kadib aadam jannada galay isagoo cadaawad qaaday oo ninkii macnaha waxa weyaan maaragtay cadow ah baa markaa ilahi subxaana watacaala aadam amar siinaya waqulnaa waxaanu yidhi yaa aadamu aadamow uskun deg baa layidhi anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga xawaa aljannata jannada dega wakulaa cuna minhaa jannada xaggeeda waxaad ka cuntaan ragadan aklan cunitaan ragadan oo waasica meel idin soo celisa male dhib aan lahaynoo yani aydan ku dhibaatoonin xayisu shi'tumaa meel alla meeshaad doontaan walaa taqrabaa hana dhowaanina haadihi shajarata geedanna ha u dhowaanina waa geed gooyoo farta lagu fiiqay middanna ha u dhowaanina iska jira
oo fatakuuna aad ahaataan haddaad u dhowaataan min aldaalimiina kuwa dulmiyey naftooda macsiyada ay galeen naftooda ku dulmiyey baad noqonaysa marka isjiro nabi aadam calayhi salaam markay malaa'igtu u sujuuday kadib ibliisna bannaanka ku dhacay oo cadaawadiisii soo baxday ayaa jannada deglayay isaga iyo xaaskiisa xawaa oo markaa isaga laga abuuray isaga feediisa ayaa laga abuuray xawaa jannada deglayay midawey ma janno dhulka ku taallayay beer dhulka ku taallamiyay mise janno sare oo samawaadka ku taallay waxaa loo badan yahay inay ahayd jannada sare inay janno sare ahayd oo middan macnaha waxa weeye jannada qur-aankii sunnada isticmaalan ay tahayna waxaa laga faa'iidaysanayaa aayaadka soo socdaoo ilaahay degan uu ku yidhi degana ruuxa dhulka jooga laga yidhaah janno sare ahayd marka jannada deg baa layidhi adiga iyo xaaskaaguna waxaad cuntaan cunitaan waasica cunid ballaadhan meel alla meeshaad soontaan jannada ka cuna laakiin halkaa geed iska jira waa geed xibjo ah geedaan iska jira wixii kaloo dhan waad u fasaxantay waa adigoo hadda lagugu sii daayay kownkaa ballaadhan oo lagu yidhi shay hebel iyo shay hebel unbaa xaaraam ka ah wixii kaloo dhan xalaal buu ku yihi labadii shay ee xaaraamtay baa laynaga kari lahay soo xalaashii oo arlada ka badatay labadii xaaraamta baa laynaga kari lahay marka halkaa geedun iska jir baa layidhi geedan laga reebayo waa imtixaan weeye nabi aadam calayhi salaam lagu imtixaanaya halkaa geed iska jir baa layidhi geeduu geeday ahayd laynaga gelinin geedaha geeday ka ahayd shaqadeenna ma aha saas way macna wadkur waxaad xustaa id waqti waqulnaa waxaan nidhi yaa aadamu uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaagu aljannata jannada dega wakulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ragadan aklan cunitaan ragadan oo waasac ballaadhan yani oo ciidi ahayd xaytu shi'tumaa meel alla meeshaa doontaan ka cuna walaa taqrabaa hana dhowaanina haadihi shajarata geedan ha u dhowaanina oo fatakuunaa aad ahaataan haddaad u dhowaataan min aldaalimiina aad ka mid noqotaan kuwa dulmiga sameeye gardarrada ku kacay yacni kuwa naftooda dulmaxay ruuxu markuu dembi galo naftiisu dulmiye dhibka dembigaa ka imaanayna isagoon buu dib ugu soo noqon marka daalimiinta aad noqotaan faazallahuma ashaytaanu canha faakhrajahuma mima kaana fiih maxaa ka dambeeye marka aadam jannadii deg ibliisna la caydi faazallahuma azalla wuu simbirixiyey ibliis humaa labadoodii buu simbirixiyey faazallahumaa wuu simbirixiyey labadoodii ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey canhaa ay bisababiha geedkii sababteedu ku simbirixiyey faahrajahumaa labadoodii wuxuu ka saaray mimaa kaanaa waxay ahaayeen fiihi dhexdiisa wixii ay ku dhex jireen oo barwaaqo ahayd buu bannaanka uga soo saaray wa qulnaa waxaanu nidhi buu rabbi subxana wa tacaala yani ihbituu hoobta oo dega bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwan cadow u yahay idinkoo cadow iyo col isu addega hoos aada walakum waxaana idin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu sugnaansho meelaad ku sugnaataan oo degtaan baad dhulka ku leedihin wa mataacun iyo wax lagu raaxaysto ayaad ku leedihin dhulka ilaa xiinin muddo intii laga gaadhay shaydaan labadoodii wuu simbirixiyey azallada waxaa la yidhahdaa zalalka waxaa la yidhahdaa lugtu markay kuu fakato oo simbiraxataa la yidhahdaa waxaana laga wadaa khaladkiibuu ku riday khaladkii iyo arrinkii loo diiday buu ku ridayoo intuu shukaamiyey oo qalqaaliyey ayuu aayar si fudud u geliyey arrinkii ilaahay iska jiray halkii geed buu ku riixay waana geeda keentay sababta ay meesha kaga soo baxeen xoog buu adeegsado u isticmaalay maya xoog uma isticmaalin iskiisabana xoog maba isticmaalaba laakiin muxuu isticmaalaa xeelad iyo inuu ku sugan saraaxo iyo inuu ku shukaaniyo iyo inuu ku qalqaaliyo iyo inuu si fudud arrinta kuu geliyo yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa buu ku yidhi aadamow geed haddaad cunto boqortooyo aan dhammaanaynin iyo nolol aan geeri ka dambaynin aad ku gaadhayso ma ku tusaa aadam ilaahay dardaarankiisu qabayska jir baa la yidhi marka uu nin ku degdegaya maya waa ka istaagay markuu arkay inuu istaagan yahay oo warkiisa ku qancin ayuu u dhaartay
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إلهي بوغب قارتي إنه بعضيه ويفنفرين بني آدم مركا وحاول يصور قال لما أرمونه آدم وجعني معين ومرحمه iyo nool aan dhibashanahay waa labada maanta aan ku tiilaysanayno labadaas ka soo ayarku yani suuban salaahay si fudud buu markii hore macna fa azallahuma sasa laga wadaayo halkii geed ee iska jira leeyay ayuu suu u qalqaalinayay buu ku simbirixiyay khalafkii markii uu tuqrada oo igraayo macna labadoodii tayib barwaaqadii ay ku jireen buu ka saaray isaga sabab u ahaa inay ka baxaan barwaaqadaas ilaahay ka saaray sababtiisa yahay saas daraadeed baa lisaa ka saaray markii ay yani waxa weeye laga saarayna rabbi wuxuu ku yiri subxaanahu wa tacaala daga idinkoo idil israaco hoos aada dhulka aadalay idinkoo weliba cadow isu ah ibliis iyo aadam iyo xaawa cadowgiisii آدم عليه السلام عرورت السيئوات كي سبلان دونا عدو يسمى قم دونا ايها مفتوضة يعني وحوة الله وحوة احمر دونا خوص آدم عليه ملك ايات ديغان كل دين يميات وحسن مكانه ديغان بات كل دين مكانه سبناشه إذا مركوا ركوربي ديغان يسوع ملك اللي يندجيه خوص آدم عليه وحياما نقول راح يستانا ملك يدين يعني انتي مدلقة قاري مدلقة سوى مدلقة وإلى أدونك لقدوا بدونه قيامة لقى قاري إلا انت آدم عرورتي سيوم بقولك قرر حيثان اسمه ودقل مركي الإلهي وقتي وكنت لقلين لقارو مع اللفظوب الدوراي ولا قبين دوراي لكن انت كورسة وإذن كانت عليه معنا طيب فأذلهما لوضعوا دي أيوسم بالرحية الشيطان باسم بالرحية أو خلقكي كردي عنها أي بسبب هذا geedii sababteeda ayuu ku simbirixiyay geeday cuneen baa sabab u noqotay inuu khaladka ku rido fa akhrajahuma labadoodii buu saaray mimma shay buu ka soo saaray kaana ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo barwaaqadii ah maalin jumcada bay ahayd sida xadiis nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay maalin jumcada ilaahay aadam abuuray jannadana maalin jumcada la geliyay maalin jumcada jannada laga soo saaray fa akhrajahuma mimma kana fiihi wa qulna waxaan ihbitu hoota oo daga bacdukum qaarkiin حاربوا لبعض قارك كلا عدو العدوية إذنكو عدو إسواء ولكم وحايدين سقناه في الأرض دولك تحدي سنة مستقر مكان سقناه شوف ميلا تكون سقناه كانوا الدكتان بات كل ذين دولك ومتاع وحل غرة حي السنوات كل ذين إلى حين مدة انتي لغا قارك واذكر راح يسانو يسانو واحد دوشي سيلا سنة يسانو يعني وحوي ميشا سادق يسانو ويدنك ومتاع إلى حين بالمركو كترنا صاصر معنا طيب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نبي آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى آدم مركا خلق وقض عين ولا فائدة سنينك عدو يساوى فائدة حقيه أمري آدم لتشندي بكتر منك نوال إريه حقيه أمري سؤال ما الله أعلم سؤال تدوطع وماشي من هاي يعني قصص إسرائيلية قصة أروري لكن ما دام إلهي وسنوشيك النبي سنه وسنوشيك كل يوم لحديد وصو صورة قلما يسوى بولك تشوغا كما تشمد تشوغا إنه لحديده صورة لحديد كرو هو لحديد ويأدونك عرفتي سأنه تشوغا عرفتك المتشوغا هو لحد ما ينقل تليفون بنودر معنا إيميل بنودر معنا هو إنه بني آدم وتوتر من أنت متحد عالم يلقى يبقى محاولة لزمرت وسورة كتامك واحد مستحيل معه لكن قاب كيبه مري الله أعلم صاصي معنا طيب فتلقى وكل مي آدم بالله كل مي من ربي حقي سوحه كلب كل مي وكقاتي كلمات ويروين إليوين بو إلهي حقي سكقاتي وكهلي فتاب عليه مركاسو الله كتوب أقبلي محايا لي إنه ألا هو إسوء التواب ومدك توب أقبل كبضا الرحيم أن حريص بني الله سبحانه وتعالى كلمات كاسي نبي الله آدم عليه السلام مركو خلق كبعي وإلهي حقي سكهلي إلا قد توبت أقبلي وقوة إنه إيمان دولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين انت صلى بري الله يامد من النفس لنا حداد الله حريصنين النودم بكافين قوة خسارة نكمل نقولنا كلمات كاسو إلهي وبرو حق إلهي لقبري بو إلهي أقول نقضى أقول توبت كالي كدنا إلهي توبتي وكأقبري بحير إلهي يعني حالدي سوحي تاعي إنه أدومري سادي سوى النقضى إلهي سبحانه وتعالى أقول نقضى أو توبته وكأقبله معنا فتلقى
وكلمي أو قاتي آدم من ربي حقي سووه كقابلي أو كقاتي كلمات كلموين ويروين يريوين وكتب الضلبيو فتاب مركزو الله كتب الأقبل عليه تشيسا بحيث إنه الله هو يسوي التواب ومد كتب الأقبل كبروي الرحيم والحريص كبدن الدمدي سأدو كتب الأقبل درس بينات هايو نسي آدم فنسي بنوه يعني آدم واه المامي عرورتي سوى المامي كل خلط كواد قليسان لكن آبيهم شدكيسي مرة خلط كمركب قشان كسنوه خلط محادو قليسان ليديني ماي لكن واحد ليديني محادو من حبكتي ما تصام غطان سيدي آبيهم بغصوا مغضي آدم عليه السلام قلنا هبطوا منها جميعا قلنا مركا واحد نريده الرب سبحانه وتعالى اهبطوا غوطة منها جنة كغوطة جميعا إذنكو إذن كل جنة فإما يأتينكم رمك عدو فإما يأتينكم هديه إذن يمادو مني أرجع حقك هدو إذن كي يمادو هدى هارون هدو إذن يمادو وكتب يا رسول صادره فمن تبع عدي رعد هدايا هارون كي فلا خوف وحعصي عليهم دشور معهن الدينك وحنوش إذا مستقبلك كعبس المايا وله مرعينا أن يحزنون كون مرقو الدينك وحي كتغين كمرق مايا والذين كوا كفروا قالوا لي وكذبوا بيني بآياتنا آيات كنغا أولئك كوا سن أصحاب النار نار ضد كدوي هم يقولون فيها النار تدحي خالدون كوكواري دقا بالي خوبتا محل لو سعلي خوبتا ومتي هوري لو سعلي يهبطون محل لو سعلي وحال لو سعلي مدي هوري hadalka ku xidhnaa ee daba yaalay iyo midan hadalka ku xidhan baa kala ah midii hore waxay ahayd ihbitu ba'dukum li ba'din aduun daga dhulka ayaa deegaan ku leedihiin iyo makaan sugnaasho Soomaaliya saasa loo keenay tanna waxa loo keenay daga oo hoos aada idinkoo idil haddaan hoos aadna Allah annagii adigu miyaan kala goonay naxariistaasi masaasan kaga tagnay bas miya maya hadday haruun xaggayga ka yimid idin yimaado dhulkii baa tagteen sooma haruun kaya hadduu idin soo gaadho oo hanuunkaas muxuu yahay kutubtuu ilaahay soo dejinayo iyo rususha uu soo dirsanayo addoommada uu soo dirayo wey hanuunkaygaasi hadduu idin yimaado hanuunkayga ruuxii raaca oo intuu rumeeyo raacay cabsan maayo mustaqbalka موتك iyo geerida iyo wixii ka dambeeya qabriga ilaa qiyaamada ilaa meesha lagu dambeyn doono cabsan maayo mana murki doonaano adduunka waxay kaga tageen u walbahaari maayaan sababtu waxa weeye haddii wax wanaagsan aad ka timid wax ka wanaagsan lagu siiyay kii hore miyaad u walbahaari aakhira hadday tageen wax adduunyadiiba ka inqasaaday iyo wixii yaalayba ayuu ilaahay siinay subxaanahu wa tacaala طيب marka labada qoladaas qolada labaadi waa kuwa beeniyay aayaadkaygu markay u yimaadaan hanuunkaygu markuu u yimaado ciddii gaalowda oo aayaadkayga beenisa kuwaasi naarta dadkeeda wey kuwaasina waa naarta dadkeeda aayaadka beeniyey gaaloobay wayna ku waari bu rabbilahi subxana wa tacaala saas فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هارون كيغا الروح الرعاي الدين كان النوم مايو آخرنا هوغي مايو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكري كيغا الروح كتشت سدنا ووحيي أن كيني هارون كان إذن صدر الروح ديدوس كتشت سدنا ولن عديد أبو أدونك كل يهي ونحشره يوم القيامة أعمى ما ننت قيامتنا إسقوا إن طلعنا كيرينا سوف الوعد بيا معنا تنصر سيو كلام أحمد هارونكو هدوين السوق على الوضع قيوضا وقربي غيب قالا وإلهي وعذاب كواريو غيب هارونك إلهي حقي سكتي مد الرعبة غيب هارونك الرعبة مركا والله قصوا بالله رسوشا يبكي الرعسناوي وماليه رسوشا الرعسنا أيها هلك سوى ذقلية كي قيبت كلنا واحد كليسة كوحدي بينيسي ومرافقين تيا قالوا معنا أيها هلك قلي قلنا واحد لإهبيته غلط صاصي معنا مركا ميزانك إلهي الدومديسة يعني واحد ينكوك الهرمانية أما وحكو السيني أما كي قدني واقع هنو كي مرة علي مثل ماذا الرعي لكن كان قروح ضمن كان حول لها انشري كان أدونك معك لها
kana macnaha nasab wanaagsan lahaa yani kana madaxweynaha warkaas ilaahay agtiisa ma yaalo subxana watacaala hanuunkii ma raacday qolada horaad ku jirta hanuunkii ma ka tagsay oo ma beenisay qolada dambaad ku jirta warku waa intaa macnaha qulnaa waxaanu idhi ihbituu hoobta minhaa jannada xaggeeda ka hoobtoo dega jamiican idinkoo idin fa imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun oo kitaabta aan soo dejinaya hadday idin timaado faman ciddii tabica raacda hudaaya hanuunkayga ruuxii raacay falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin mustaqbalka ka cabsan maayaan walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murgo mana murgayaanoo wixii horay uga tegayna oo dhaafayna ka murgi maayaan maxaa yeele wax ka wanaagsan baa la siin والذين كوا كفروا قالوا وكذبوا بيني بآياتنا آيات كنجا بيني أولئك كوا أصحاب النار النار تتكذوي هم إيغنا فيها النار تدحي خالدون كواريا انت في قصدي وسيقابا ووغاها الليبا لقى سورة كان يكون إمام دون تاسان وليما أشهد من قرآنكم ميل أما سورة تحديدا أرن لغوب قابية وميل كان لغوب فاهمة انت سعادة ماشا لقى ujeedada laga leeyahay qisadaas waxa weeye waa digniin warbini aadamow saasuu shaydaan idin galay oo idinka lugmeersaday oo aabihiin yani waxa weeye u khalday cadowgii isaga ahaabaana adduunka idinla joogay isjira inna shaydaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwan cadow ka dhigto ninka iska jira cadaawadiisu iddiimuna mid hadda bilaabatay maaha waa mid markii laydin abuurayba ka soo bilaabatay marka labaad weeyaane cadaawad heshiis laga geli karo maaha bini aadamka hadda haddaynu cadaawadina dhex marto aan heshiinayso lama dhigi karo laakiin ibliis cadaawadiisa iyo shaydaan miyaynu heshiis ka geli karnaa waa waan male oo heshiis male oo meel dhaxa la isugu yimaado male marka war ninkaa iska jira way macnaha qisada muhiimadeedu wata